السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دبادة جانالك شرمشيق iyo teknolojiyada iyo dhisaanka cashirkan waa cashirkeeni sideedaad ee barashada kombiyuutarka waa dhanka kale markii la fiiriyo waa cashirkeena labaad ee barashada MS Word. maanta waxaan baran doonaa hadurtii tabiska kombiyuutarka kuwaas oo qaybaha ugu muhiimsan ee lagu shaqeeyo ka ugu horeeyo oo ah file kaas oo ay hoos tagaan new oo ah inaad soo furto page cusub oo warqad cusub inaad soo furto open oo u taagan inaad soo furto file hore kugu seefnaa share oo ina qof u share gareyso filekii aad diyaarisay copy oo create copy waa ina copy aad ka sameysaa hadurtii documentiga aad diyaarisay export oo ah inaad download gareysaa pdf ahaan documentiga aad diyaarisay print oo inaad daawacdaa documentiga aad diyaarisay oo rename waa inaad magaca aad u bixiso documentiga aad isticmaalayso waxay ka caawinaysaa inaad documentiga markaad u baahato si fudud aad ku hesho. tusaale intan waa ka soo furi kartaa oo magaca waad u bixi kartaa. talamaad oo ah file waa tagi kadib rename ay ka tagi kadibna magaca aad u bixinaysaa sharmasheekh waa ka magaca waad u bixisay. taas waxay ka saacidaysaa marka documentiga aad u baahato inaad isticmaasho oo si fudud aad ku hesho. tabiska xiga oo ah home ilaa dhowr qaybood oo ah clipboard, font, paragraph, styles, editing, voice, proofread, undo iyo redo. tusaale waxaan qoray kana ayaa qoray haddii aad dhaho undo wuu tirtirmaya, haddii aad dhaho redo wuu isoo noqonayaa. tusaale cashir adoo ogeynaa iska tirtirto amba wuu ka tirtirma cashirkii ka tirtirmay waxaad tegaysaa faraarta undo alada control z shortkeedana waa control z. oo tan kale meesha kale clipboard markii la hortago waa clipboard waa dhowr qaybood waay. inta basti waa cashir hadurtii tan waa basti oo ah qoraalkii aad soo koobi gareysay. tusaale waxaan qoraynaa tusaale waa for example waxaa leenahay copy ayaa leenahay kadna waa dhigi kartaa had mid ogow copy iyo kad waxay ku kala duwan yihiin. kad haddii aad dhahdo qoraalkan wuu baxaya control z haddii aad copy dhahdana wuu kugu haraya qoraalka haddana isla meel kale ayaa wax ku dhigi kartaa home ayaa dhigaysaa basti ayaa ku dhigi kartaa. tusaale waa kana wajid basti allo waa ka haddii aad dhahna kad tusaale fiiriya kad haddii aad dhahna fiiriya hadana basti la wada kad allan hadana basti wajid isku wada mid waa kad laakiin waxay ugu duwantaa oo qoraalka meesha uu ku yiri inay soo wada qaadeen. intaan xigo fontiga nige tusaale waxaan maanta baranaynaa MS Word iyo waxa uu qabto waa qoran tusaale leewa waa qabanay waa la gareynay biidan waa hoos ayaa ka bilaabana halkan oo ah biidan oo ah bold waa fartaada waa inaad waaweyn kartaa bold ka dhigi kartaa sida camal bold ka dhigi kartaa bold biid waxay u taagan tahay bold waa inaad qoraalkaada ka dhigi kartaa. caydana waxay u taagan tahay waa italic waa gf waa inaad qalooci kartaa mujudo. okay yudan waa underline waa hoos waa tusaale waxa ignore iska ignore. okay tusaale fiiriya waxaa tegaynaa home ayaa tegaynaa yuda waa underline waa ina fartaada hoos ayay ka xariiqaysaa hadurti waxaad diyaarsatay. waa kana waa italic laka waa kana mujudo waa bold waa waaweyntahay italic way ku jirta fartaada underline hoosna way kaga xariiqataa. b shortcutkeeda waxa waa control b haddii aad farta waa yaraan mujudo control b haddii aad waaweynaa control b haddii aad waa yaraan. taas ayaa loo adeegsadaa shortcutkeeda intaas waay. ayna waxa waa control ayaa leedahay oo control I haddii aad dhahdo waa ka qaadme haddii aad dhahdo control I waa jiifane waa ka mujudo shortcut waa udana waa control u haddii control u aad dhaho way ka qaadme way saarme haddii aad ku sii celiyo haddii markasta control u aad dhahdo haddii saarneed ka qaadme haddii aad saarneed way saarme waa taas intaas ay u taagan tahay oo
tan kale waxay u taagan tahay waa street draw laakiin farta qoraalka ay qortay ay dhaxda ka jeexaysa oo ah tusaale fiiri ah waa kana ila arag waadan bujujudo waka tan waxa lagu talagalay qoraalkaada si fudud waa inaa hadurti hadii oo qoraalkaas ka qaldayo oo hadii aad tirto wax kale ay ka halaabaan adoo iswareerin saan leedahay saas oo qoraalkaada waa qalad waa oo intan waxa waaye font name Allah farta doonta ayaa ka isticmaali kartaa tusaale waa kana weeri farta doonta ayaa isticmaali kartaa hadda times euro waa kana farta doonta ayaa isticmaali kartaa intan waa laga weynayaa farta waana laga yareeyaa tamilaaw waan laga weynayaa oo inta noo soo gudbo x square script ayaa la xisaabta inta badan loo adeegsadaa x square tusaale waxaan qoraynaa x ayaa qoraynaa hadana 2 ayaa qoraynaa waa weyna ka dhigan anagu isla hayno waa weyneen x kale hadii arabto tooda ina power ah ka dhigto labada bis ayaa halka arabto ina kor saarto bis ayaa dooranaysa hadii arabto ina hoos dhigto waa ka cashirkeen xigo wuxuu noqonayaa ina hadurti janji case ayaa la janji case waxay u tahay hadii arabto ina fartaan hadurti aad wax ka bedesho hadii arabto jumladaada xaraf kaliya ugu hore sakar kasto lagu bilaabo xarafka ugu hore kaliya inuu ku weyn daarabto waxa tagaysa hadda sentence case inuu taagantahay waa ka inuu taagantahay taadu waa weyn hadaa rabto inaad yaris ka dhigto waxa tagaysa lower case kullu waa isku wada ekaanaya hadii arabto fartaada inaad ka dhigto ayada dhow waa weyn hadaa rabto inaad ka dhigto upper case iyo fartaada dhow wada waa weyn idoo tusaale waxa diyaarsatay document dhan ayaa diyaarsatay farta ku qoran waxay tahay inuu ay hadurti waxay ku tahay lower case oo farta dhan way yar tahay hadii arabto ayadoo ku yar hal mar ina waaweyn bold ka wada dhigato kabis logana macquul maahan hadii arabto fartaada ina waaweyn ka dhigato waxa imaanaysaa home waxay ka tagaysaa hadurti janji case kadibna waxa ka dooranaysaa upper case warqa documentiga dhan faro waaweyn ayuu ku noqonaa asa farta waaweyn ka tusaale ku diyaarsatay hadii arabto yaris ina ka wada dhigatana waxa leedahay lower case waxa rabtaa ina ka dhigato sakar kasto halka ugu hore ina weyneyso kuwa kale ay yaris sakar kasto bilaabay xarafka ugu hore inuu weynaado kuwa kale ay yaraadaan saas ay ku noqoto tusaale fiiriya hadda w weynta kale way yartaa mugta sakar kale nagii waxa ka bilaabeen hadana d ayaa ka bilaabeen xogaa idaal dareema waa kaas hadan fiir bujujudo sakar kasto ugu hore ay ku weyneenaysa inta kale way yareynaysa tan kalena waxa waa capitalize age word Allah hadurti waxay ku weyneenaysaa jumlad kasta oo space markasta space aad daawardo xarafka ugu hore qorayso weyn ayuu ku noqon bold waa kana mujido waxaan maanta baranaynaa ms waa kan xarafka jumlad markasta space aad daawato xarafka qorayso weyn ayuu noqonayaa oo ay kan kalena gay oo ah tan waa jumlad mid isku qasqasan waaya hadurti mujido waxaan jumlad isku wada qasan waa mid ugu fiican waa sentence kan ayaa ugu fiican oo kan kale nagay waa headline waa qoraalkaada waa ina hadurti calaamaday kartaa tusaale sagar rabtaa ina calaamadeyso aad diyaarsatay sagarka si aad u calaamadeyso waxa tagaysaa hadurti headline kadibna waxa ka dooranaysaa kalarka rabto waa kaasa imisa ay aragtay qoraal saan oo kala hoos ugu calaamadeysan sidan ayaa loo calaamadeeyaa oo ah kan xigo ah ina fartaada aad ka bedesho kalarka tusaale farta aad ku qor kalarka ina ka bedesho tusaale madow waa buluug ka dhigayna waa ka tusub ka qaad waxaan qaadeena okay waxaan geynaysaa headline kadibna no color fill ale hadii san qabso dhibaatana saas ayaa sameynaysaa okay home nagu celi kalarka waa kana inta ayaa laga bedelaa oo ah farta magaceeda waxa la color font color ayaa la farta ayaa kalarada lagu bedelaa waa ka mujido waa kaasa okay meeshan kale oo ah ina hadurti grow font size alla farta waa laga weyneeyaa inta farta ayaa laga weyneeyaa qoraalkaada intan waxa la dhahaa shrink font size ayaa la farta ayaa laga yareeyaa waa ka
اوكي ماشي حigtana gee paragraph inta waa hadurtii kan ayaa kala sakineynaa اوكي control A dheh اوكي nagee paragraph hadurtii inta waxaa la align left la qoraalka wuxuu ka bilaabay dhinaca liftiga ayuu ka bilaabanaa bidixda اوكي oo tan kalena ah hadurtii align center dhaxda ayuu ka bilaabana qoraalkaada align right la qoraalkaada wuxuu ka bilaabanayaa midigta sida carabiga oo kale kan waxaa la dhahaa hadurtii justify la dhahaa qoraalkaada wuxuu ka bilaabanayaa qoraalkaada hadurtii dhaxda ayuu ku soconayaa geeska markuu tago asaa soo celinaa qoraalkaada wuu simnaaya ma kala waaweynaanayo oo align line spacing kan waxaa la dhahaa line spacing oo ah qoraalkaada space u dhaxeeyo ayaa lagu sameeyaa tusaale haddii aad dhahdo hal waa kaas oo isku dhawaanaya kan xigo oo ah special identity la dhahaa first line mujudu special identity ayaa la dhahaa kor waxaa la dhahaa bullets ayaa la dhahaa tusaale markii aad wax diyaarinayso sagarka ugu horeeya sida camal inaad ka dhigato waa ka dhibca inaad u samaysato dhibcaha dawa bedel kartaa waxaad doontaa ayaa ka dhigi kartaa tusaalaha kaasa waxaad doontaa ayaa ka dhigi kartaa mujudu hadaad emoji ayaa saari kartaa waa ka qaybtan kale oo ah marka oo qoraal aad diyaarinayso lambare iyo wuxuu kugu sameeyaa xarfood kuwa marka roman numbers ayaa la dhahaa kuwan waa xadrooyinka ABC-ga waa ayagoo yariis hoos ay ku yaalin roman xitaa ayagoo yariis hoos ay ku yaalin roman xitaa naftirkooda waa kana tirooyinka iyo waxa doonta ka saaray ka dhigta tusaale hada fiiriya hada waa qoraya mugta alle fiiri ina lambar ma qoray dhawaato saddex gelinay control inta igu soo celi z haka okay qaybta xigtana waxaa la dhahaa hadurtii qaybta ku sii xigta oo ah kuwan waa waxay ku saaraya checklist ayaa la tusaale qof ayaa waxa u dirsatay inuu ku soo diyaariyo listigaas wax baa qaldamay tusaale hadda waxaa qaldan oo kale saas u saare qofka hadii ogaa figeed documentii oo dhan sida wax waa arday buu ku keensado kale waa wixii saxan u deynay waxaan qalad u saareen bis ayaa saas leedahay bis mid kale oo ugu dambeeyay degrees identifier la halka rabtayna hor u soo bixisa ayaa tigta ayaa waxa geynaysa ayaa tigaysa saas ayaa hor u soo bixinaysa inta badan waxa adeegsado macallimiinta wax diyaariyaan imtixaanaad ka wabgelinta ayaa lagu diyaariyaa inta badan okay ashirkan weli ma dhamaanin waxa ku xigto okay waxa tageynaa intana find waxay qabataa tusaale titirinta waxaan qoraynaa yaranake Xasan Salah magacyo ayaa qoraya Ali Maxamed okay magacyo ayaa qoray waxaa rabtaa in arday xogtiisa aad aragto okay intii aad raadin lahayd taas inta soo arday ka raadin lahayd dhibaato ay kugu noqonaysaa tusaale dhibaato ay kugu noqonaysaa waxa kaga fudud inaad tagto find kadibna aad qorto tusaale shar marke waa ka oo ku calaamadeen markasta erey qorto ku darto ku calaamadeyna tusaale dan Peter Maxamed kadika aka saas ayuu ku fiican yahay find taas ay ka caawinaysaa taxigto ah replace oo ah tusaale arday ay rabtaa inaad magac ka bedesho intaasoo arday ay iskuulka joogto ardaygaas inaad magac ka raadiso xogaa ay kugu qaadanaysaa sidaas darteed replace ayaa leedahay ardayga rabta inaad magac ka bedesho magaciisa ay qoraysaa tusaale Cali ayaa rabta inaad magac ka bedesho Cali ayaa qoraysaa kadibna waxaa ku bedelaysaa Cali ayaa rabta inaad magac ka bedesho Ismaaciil waka okay replace ayaa leedahay
replace ayaa leedahay oo kaliya replace all magac saddexaad uu yahay iyo waxaas saddex magac hadaa qortaa bedel replace all isticmaale okay hadda xaano dhiman waa dictate waa in codka waa meeshan ay oo ChatGPT kuwaas way cashirkan maanta intaas oo ku eegaya waxa inoo balan cashirkan xiga sidaas iyo